halkan waa dhanka wararka daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad warkan ku daawan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada Jubbaland oo hor istaagay diyaarad la doonayay in laga dejiyo magaalada Balad Xaawo oo ciidamo ka qaaday magaalada Muqdisho diyaaradda oo si dirqi ku badbaaday ciidankii ay wadana ku soo celisay magaalada Muqdisho waxaad warkan ku daawan doontaan dowladda Itoobiya oo hor istaagtay ciidamo kale oo Xasan doonay inuu ka dejiyo Garbaharey Xasan Sheekh Maxamuud ay kaga dhamaatay gobolka Gada awoodda Axmed Madoobe la soo baxay xildhibaanada Jubbaland oo garab siinaya Axmed Madoobe shir la isugu tagayo magaalada Kismaayo oo looga hadlayo aayaha dalka iyo badbaadintiisa xilli Xasan Sheekh Maxamuud oo la kulmay mucaaradad weyn warbixinayaan kaga haya sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka bilowday magaalada Muqdisho ee Xasan kursiga lagu dhaafsiinayo wararka ugu dambeeyay daawadayaal u diyaar garooba aynu ku bilownaa isbedel siyaasadeed oo muhiim ah ayaa ka socda gobolka Gado Xasan Sheekh Maxamuud ayaa doonayay diyaarad waday ciidan lagu qiyaasay 150 askari oo ka tirsan oo sugi dawlad doonay in laga dejiyo magaalada Balad Xaawo kadibna ciidanka Jubbaland ayaa adeegsaday qoryaha lidka diyaaradaha kuwaas oo ku weeraray garoonka diyaaradaha Balad Xaawo taasina waxay qasabtay in si degdeg diyaaraddu ay dib ugu soo laabato magaalada Muqdisho iyadoo ciidamadii dejin talaabtan ayaa loo arkaa mid ka mid ah go'aanada adag ee ciidanka Jubbaland ee gobolkaasi ku gaareen inay ka difaacaan magaalada kooxda Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhinacyada kale ee doonayay inay halkaasi tagaan go'aanadaas ayaan u muuqdaa inay isbedeli karaan xaaladda siyaasadeedna ka dhigi karaan mid si adag gacanta loogu qabtay loo qorsheeyay isla markaana looga jawaabay dhacdooyinka haatan taagan walow dadka badankiisa ay arrintaas u arkayaan jawaab adag haddana waxaa muuqata in Axmed Madoobe u diyaar garoobay dagaal adag uu la galo kooxda Xasan Sheekh Maxamuud oo ku eedeynayo inay si weyn saameyn ugu leeyihiin xaaladdaas isla markaana ay tahay in looga jawaabo dhammaan dhinacyada taasina waxay muujin doontaa go'aan qaadasho adag iyo isbedel si weyn waqtigeedu u yimid taas ayana xalin doontaa fursadaha siyaasadda waxaana sidaas oo kale la leeyahay qodobadaas ayaa qayb adag ka noqon doona go'aanada siyaasadeed isbedelka sidaas oo kalena waxaa loo arkaa tallaab ka mid ah tallaabooyinkii ugu dambeeyay waxaana sidaas oo kale la leeyahay qorshahan ayaa qayb ka noqon doona tallaabooyinkaas ayaana bixin doona isbedel siyaasadeed waxaana sidaas oo kale loo arkaa qorshahaas in la wada gaaro sidaas oo kalena waxay arrimahan bixin doonaan jawaab siyaasadeed go'aan qaadasho iyo fursado dhif iyo naadir ah tan ayaana sidaas oo kale la leeyahay halkan ayaa qayb adag ka noqon doona dadaaladaas ayaana bixin doona jawaabaha rasmiga xilli dadka qaarkood ay qaateen go'aan siyaasadeed oo si weyn u saameeya bulshada dadka deegaanka waxaana arrimahan u muuqataa inay xallin doonaan kabashooyinka haatan jira waxaana saameynta siyaasadeed kor u kacday muddooyinkii lasoo dhaafay iyadoo si buuxda aragtidaas ay qayb uga tahay go'aanada dhaf iyo naadirka ee haatan taagan walow si weyn loo qorsheeyey looga jawaabay dhacdooyinkaas haddana waxaa muuqata arrimahan inay imaanayaan xilliyada ugu xasaasisan kana jawaabi doonaan caqabadaha iyo tallaabooyinka haatan taagan kuwaasoo si guud u saameyn doona xaaladaha siyaasadeed ee gobolka taas ayaana qayb ka jawaabista dhacdooyinka taagan sidaas oo kalena waxay u muuqataa isbedelada dhif iyo naadirka ee gobolka jira taas ayaana xaqiijin doonta go'aanada haatan taagan walow si weyn loo doorbidayo in Axmed Madoobe uu tallaabooyinkiisaas ku adkaysto meeshana ka saaro kooxaha duulaanka kuwa waxaana arrinkaasi u muuqataa inay saameyn weyn yeelan doonto xilli dalalka gobolka si buuxda ay u gaari doonaan ajandahooda siyaasadeed go'aan qaadashada iyo ka jawaabista dhacdooyinkaas ayaa sidaas oo kale u muuqda kuwa saameyn adag leh iyadoo dadka badankiis ay u arkayaan halkan mid istiraatiiji ah kana jawaabi doona qiimaha ay u leedahay dhammaan kooxaha siyaasadda iyadoo isbedelkaasi la filan karo ayay haddana u tahay in halkaas la wada gaaro waxaana dadka qaarkood ay isha ku hayaan go'aanada maalmaha soo aadan bilaha iyo toddobaadyada soo socda la gaari doono sidaas oo kalena waxay u muuqataa go'aan siyaasadeed oo si sax ah ugu yimid amnigii siyaasadda isla markaana caddayn u ah hiigsiga siyaasadeed Axmed Madoobe ciidamo ku filan waa uu haystaa waxaana arrinkaas u muuqataa isbedel siyaasadeed sidaas oo kalena waxaa la leeyahay qorshahan ayaa qayb ka yihiin sidaas oo kalena waxay u tahay isbedelkan waxaana arrimahan ay caddayn u yihiin tallaabooyinka siyaasadda amniga qaranka iyo ka jawaabista xaaladaha taagan walow dadka badankooda ay si weyn arrinkaas ula dhaceen haddana waxaa muuqataa in go'aanadaasi ay sii xoogaysanayaan walow dad badan ay isweydiinayaan isbedelka taagan qodobada la xiriira aragtida iyo siyaasadaha ayaa sidaas oo kale maareyn weyn lahaa waxaana dadka qaarkood ay leeyihiin isbedel muuqda ayaa muhiima arrimahaas ayaana ka ciyaari kara go'aano siyaasadeed oo si buuxda u saameeya dadaalkan ayaana qayb ka ah tallaabooyinkii la filayay
haddaba Axmed Madoobe si adag ayuu u muujiyay qorshahan waxaana arrimahan ay qayb ka yihiin dadaalo muddooyin soo socday kuwaas oo sidaas oo kale leh saameyn adag qiimo weyn iyo in ammaanka la gaaro wuxuuna gobolkaasi geeyay ciidamo ku filan oo kuwa ammaanka kuwaas oo si adag ammaanka u ilaaliya kana hortaga dhacdooyinka weerarka ku ajiritaankooda sidaas oo kale waxay go'aansadeen inay xaqiijiyaan ammaanka siyaasadda wax ka qabashada dadaaladaas ayaan u muuqdaa kuwa ammaankii siyaasadda si weyn u xaqiiji doona dalalka gobolkana sii doona natiijo wanaagsan oo ammaanka la xiriira walow dadka qaarkood ay u arkayeen halkan mid istaraatiijiyadeed haddana waxaa muhiim ah in qodobadaas la qaato wadamaduna ay keenaan xal si buuxda u saameeya dhammaan dhinacyada ammaanka kana qayb noqdaan dadaal siyaasadeed oo loo dhan yahay xaqiijinta amniga go'aan qaadashada iyo isbedeladaas ayaa sidaas oo kale u muuqda inay kaalin adag ciyaari karaan waxaana si buuxda loo saameeyay in halkan uu noqdo mid istaraatiijiyadeed amniga iyo siyaasadan uu ka qayb qaato walow dalalka badankooda ay u arkaan natiijadan qodob siyaasadda la xiriira walow fursadaasi ay tahay go'aan qaadasho ka jawaabista xaaladda iyo in qodobadaas ay door muhiim ciyaaraan inkastoo si weyn loo gaaray dadaalkaas haddana dadka qaarkood waxaa loo arkaa in qodobadaas ay qayb weyn ay ka qaadan karaan natiijada saxda isbedelkuna ay tahay in xalkaas la wada gaari karo iyadoo si weyn loo qorsheeyay dadaalada la midka aragtida la xiriirta iyo fursadaha maanta taagan kaas oo si weyn u saameyn doona dhammaan dhinacyada siyaasadda iyo in loo qaadan karo qodobada ugu muhiimsan ee xilligan la gaaray haddaba amnigii siyaasaddu waxay ahaayeen qodobo isku dhafan waxayna kaalin adag ciyaari kareen dadaalka siyaasadeed iyo qiimeynta sidaas oo kale waxaa loo arkaa fursad siyaasadeed oo muhiim u ah dhammaan dhinacyada siyaasadda iyo amniga si loo abuuro xasilooni guud sidoo kale Kismaayo waxaa la filayaa inay ka qabsoomaan shirar muhiim ah oo looga wada hadlayo amniga siyaasadda iyo qodobada la xiriira taas ayaana sidaas oo kale bixin doontaa jawaab rasmi oo ku saabsan waxa laga yeelayo xaaladaha dhif iyo naadirka ee gobolka jira taas oo u baahan in haatan jawaab loo helo dhammaan caqabadaha taagan lana abuuro xasilooni siyaasadeed walow dalal badan oo gobolka ay cadeynayaan in jawaabuhu ay yihiin kuwa u muuqda kuwa xalkiisa ay tahay in la gaaro xilli dalalku ay si buuxda saameyntaasi u leeyihiin isla markaana ay tahay in laga wada qayb qaato go'aan kastoo muhiim ah arrinkan ayaana xalli doona jawaabaha rasmiga ah iyo cadeymaha la xiriira aragtidaas taas ayaana qayb ka ah go'aan siyaasadeed oo kasta oo si weyn u saameyn doona amniga nabadgelyada iyo wada shaqaynta haatan taagan taas ayaana qayb ka ah go'aanadii ugu dambeeyay la filayay wadamadu inay gaaraan xilli ku habboon sidaas oo kalena waxay tahay in dadaaladaasi ay ka jawaabaan xaaladaha taagan qodobadaas ayaana qayb ka ah fursadaha dhif iyo naadirka ee haatan muhiimka u ah dhammaan dhinacyada siyaasadda si loo qodobeeyo loona gaaro xalkeeda waxaana istaraatiijiyadaasi u muuqataa inay kaalin weyn ciyaari doonto walow si weyn loogu tiirsan yahay awoodda Axmed Madoobe kulamada iyo sidaas oo kale fadhiyada siyaasadda ayaa la filayaa inay mar dhow qayb ka ciyaaraan go'aanada siyaasadeed ee dowladda isla markaana ay bixiyaan jawaabaha rasmiga gudahaan saaxiibayaal intaas waxaa nooga eg warka dhanka wararka tan inta mar kale kulmin xakee teginaa sida ay nabadgeliyo oo ku mahadsantihiin daawashadiina saaxiibayaal